ومقدمة كذا وكبرى إذن واحد نتيجة كلا صباح يعني علمي منطقة وبادل صار له وهذا منطقي وبادل بالله هاي أنا قاعد منطقة هذا يدكسي منطقة لفتك سيدكسي كلي waxa ku filan qofka ku dhahay mandiqu waa baadil cilmiga mandiqu baadil way haya inuu cilmigu mandiqu baadil yahay ii cadee adoo mandiq aan adeegsan cilmiga mandiqu inuu baadil yahay ii cadee mandiqna adiga hay adeegsan suuxu kulay mandiqa yani xitaa aayad quraan duu sheekay aayadaas quraan waxay sheegaysaa mandiqu inuu baadil yahay wax kasto aayad quraan ay sheegtay inuu baadil yahay waa baadil idan mandiqu waa baadil liftirkeeda mandiq so mandiqadan muxuu yahay mandiqadan waa in la tartiibiyo macluumaadkii لبا لو ترتيبيو يعني قاعده لبا مقدمه ان لا يباado oo macluumaadkii ah ka bacdi natiijo laga soo baxo mandiqada waa intaas marka jiifiyana banaan miya adigiina mandiqi ma adeegsanaysa anigana mandiqa ma diidaysa marka dhamaan xitaa waxa cadeeyay John Luke laftirkiisu uu cadeeyay David Hume markuu ka leeyahay nadariisa an-nisbiya فيلسوفكان اسكتلانka mashhuurka wuu cadeeyay yani qofka tajribiga xitaa inuu sidiidi karin waxaan la yiraahdo aqligiisu sidiidi karin bal tajribada laftirkeeda ay ku dhisan tahay mabda sababi ay ku dhisan tahay tajribada taas waa xuduud macrifa yani mar dhanaan ka hadli doona laakiin kaliya ahmiyadu ay leedahay aqliga ayaan u soo qaatay marka aqligu waa sababka koobaad oo asbaabta macrifada kamid ah in badan quraanka ku aragteen markastoo aqligu quraanku ku soo arooro si ficil ah ayuu u soo arooro afala taqiluna afala yaqiluna قلوب يعقلون بها قرآنك وجرا مركز عقله أصله فعل أصله مصدر العقل كأركميس maxaa marka culumadu waxay fiiriyeen maxaa keenay markasta aqli ahaan inuu quraanku markuu adeegsanayo yani maadada aqli ficil ahaan ay ugu jirto taas waxa leenahay aqligu si hadda aan sheegnay fuaad oo qalbiga hadda arkeen oo quraanku ka cabiro wala fiida iyo wal fuaad ayada kale iyo hadda xawaasti iyo kulligood waxaas waa aalad marka qalbigu waa aalo yani aaladii iyo sababkii oo aqliga isticmaalkiisa wixii aalada u ahaa way aqligu marka day waa isticmaalka isticmaalaysid adiga macluumaad muayana information muayana inaad tartiibisid oo suqra aad meel dhigtid muqaddimo aad meel dhigtid koowaad muqaddimo labaad qaab muayana aad soo geesid natiijana kaaga soo baxdo taas aqligu waa naftu ficilka ay sameynayso si ay natiijo ku soo saarto aqligu ficilka ay sameynayso si ay natiijo ku soo saarto naftu yani ficilka ay sameynayso si ay natiijo sax u gaadho ficilkaas aqli la yiraahdo saadurtay waxa ka ilaahay wuxuu ka anfinaa gaalada aqli male baa leeyahay aqli male maxaa laga wadaa qalbi iyo fuaad waa leeyihiin waxa laga wadaa qalbigooda u isticmaali mahayaan dariiq ay natiijo sax ku soo saarayaan tusaalaan ku siinayaan aqligu waxa la yiraahdaa waa sidii sancada hadda caadiga ah oo maadiga ah oo kale hadda guri marka la dhisayo kale guri hadda marka dhisaysid oo sanca kasta ay sameynaysid guri waa sanco waa dhismo marka sameynaysid waxa u baahan tahay laba wado inaad qaada u baahan tahay wadada koowaad waxa weeye maadadii iyo wixii guri uu ka koobnaa oo munaasabka u ahaa guri inaad dhistid inaad soo aruursatid يعني هذا فكرة سكينة وحلينا وين يقول عن دسن كو حلينا يقول ما كان دسينه محان كل دسينا يقول محان مناسب ما كتابان سوق لنا ما موبايلان سوق لنا يقول ما كان دسينه ما تشريال بان سوق لنا ما دربان سوق لنا يقول محل قول دسا سواء حلينا يقول ما كلا دسا وحن مناسب وأنا سوق لنا وأنا سوقي وأنا سوق لنا الواحدي يبلوكيتي يشميتري يدقحامتي iyo safiitadii iyo yani wixii masaamiirti wixii munaasabka u ahaa guri dhismihiisa waa inaan soo ogo waa muqaddimada koowaad oo mantiqo ay ka hadlaan muqaddimadaas yani shaygan aad rabtid inaad sameeysid mabaadi'da iyo wixii u ahaa informationkiisii yani mawaadi khaamka iyo ciirinka ahayd waa inaad kow soo heshaa marka inta suuqii aadid guriga marka waxa ku dhislaydo aan soo geeto inta aad soo dhoobtid hadda saa isugu walaaqdid oo shamiitadii iyo biyihii dhagxaantii iyo alwaaxdii inta isku dartid asaa isugu walaaqdid hal mar guri ka soo bixi maayo guri noqon maayo wixii markii aad soo heshid waxa u baahan tahay hadana qaab yani gaar ah iyo nidaam gaar ah oo qofka muhandiska uu yaqaano
in loo tartiibiyo oo la isku saaro dhagxaantii iyo shamiitadii iyo alwaaxdii iyo bulukeetigii masaamiirtii wixii aad soo gaday mucayankaayoo qofka marka injineerka uu yaqaano markii la isku saaro guriyaa ka soo baxa idan fiiri sancadaas markii saa guri u dhisid laba wado ayaa qaaday wadadii koowaad oo ahayd guriga waxaa ka dhis lahayd oo mabaadi'dii ah in aad soo heshid mabaadi'dii weli deetra gurigaan dhisageetid ama aad waxyaala aan macno lahayn oo kale iska soo qaadatid ama kitaabo soo geetid guri ku noqon maayo kitaabadii waa inaad soo qaadataa wixii munaasab ku ah guriga ku dhisan lahayd wixii markaa soo qaadatidna nidaamka mucayanka ah qofka injineerka uu yaqaano waana isku saartaa markaas guri kaaga soo baxaya si sancadaas marka oo xisiga ah maxsuuska ahba labada wada ay ugu baahan tahay sancada caqliga ahna labadaas wado kale u baahan tahay labada wado marka la maritaanka la maraya caqliga marka oo tusaale ahaan shay mucayana caqli ahaan markaan u fikirayno oo aleena shaygan waa caqli oo caqli baan ku soo saaran waxa laga maarmaana laba muqaddimo inaan soo qaadano oo natiijo naga soo baxdo tusaale ahaan qof wuxuu ku leeyahay ka soo qaad qof wuxuu ku weydiinayaa insaan maxaa la yiraahdaa qof ku leeyahay bashar maxaa la yiraahdaa bini aadan maxaa la yiraahdaa waxa raadinaysaa marka adiga bini aadankii waxa uu iska saaran yahay ani waa iska miisaal yani waxaan miisaalo badan la keenin karaa boqolaal miisaal la keenin karaa laakiin miisaal iska fuudan iska soo qaadanaya macna oo dadku ay wada fahmi karaan maxaa la yiraahdaa insaan waxa la yiraahdaa insaan koo waxaan raadinaynaa horta insaan muxuu iska saaran yahay waxa uu iska fuuli karo insaan oo mabaadi'da ah maxay tahay saaleen horta insaanku waa noole waay oo waa jismi yani jismi weey horta insaanku waa wax dhul dhir iyo ballac iyo umri qoto leh yani jismiga waxa la yiraahdaa wax kasta oo adduunkan meel ka buuxin kara ama wax kasta oo abcaad thalaatha leh yani wax kasta oo dhul iyo cardi iyo umri leh yani wax kasta oo qoto iyo dhir iyo ballac leh jismi waxa leen insaanku horta waa jismi jismigaas oo haddana dareen leh oo dhaqdhaqaaqna leh jismi kasta horta waa jismi aan leenahay insaanku haddana insaanku waa jismi maxay soo galaya dhagxaantu xitaa jismi oo geeduhu waa jismi oo biraha waa jismi oo yani dharku waa jismi oo mobilku waa jismi mid kastoo ka mid meel bannaan waa buuxinaya dhirir iyo ballac iyo qotona waa leeyahay insaanka marka aan sheegayno waa jismi kaliya kuma filna sa u heshid wuxuu iska saaran waxa u baahan tahay jismi wax ku sidid soo haleey jismi kobca weey jismi kobac leh oo naami ah kobca yani kora waxa loo geedihii jismi waayin waana koraan haddana waxa leedahay koritaan kaliya maahan mutaharrik bil irada dare leh yani asaga rabitaankiisa ku dhaqdhaqaaqa waa xayawaan marka waxaas xayawaankii wuxuu noqonayaa jismi wax ah oo dareen leh oo rabitaankiisa ku dhaqdhaqaaqa xitaa intaas markay tiraan insaankii weli waxba ku dhiman intaas xoolihii waxaan yani way dhaqdhaqaaqi karaan xarakay leeyihiin waana kobcaan jismina waayin insaankii marka aad sheegaysid xayawaan noole waaya kow wax kala ku sidba noolayaashii kale wax uga duwan yahay waana sheegtaa taas jinsi baa la yiraahdaa mantiqa marka laga sheekayna xayawaan markay tahay insaanku waa xayawaan waa noole hadda noole waayahay laakiin noolaha muxuu uga duwan yahay saaleedahay fikra mufakkir bil quwwa waa noole laakiin wax uga duwan yahay noolayaasha kale waxa weeye in uu fikiro oo waxa uu leeyahay insaanku khaasiyo muayana oo ah fikir inuu aqbali karo yani bil ficli inuu fikirayo shardi ma laakiin inuu aqbali karo inuu fikiro fiir marka labadaas qodob wixii iska saaran ayaa waxa leedahay waa insaan loo muqaddimo laga maarmaan tusaale kale aan ka bixinayo fudeed hadda ilaahay jiritaankiisa marka ka hadlayno yani hadda daliilka ilaahay jiritaankiisa inaan faahfaahiyo ma laakiin si kooban waxaan leenahay caalamkan mumkin waa caalamkan aan joogno hadda waa mumkin yani in la waayo in la helo labadii waa suurtagal ama gacanteedaas xitaa waa wax mumkin gacanteedaas oo jiritaankeeda iyo cadamkeeda labadii suurtagal waa mumkin kastana wuxuu u baahan yahay wax kastoo suurtagal ah sabab buu u baahan yahay mumkin hadda way iguna jiraa sabab jiritaan si u baahan waa laba muqaddimo marka labadaas muqaddimo waa labadii guriga marka la dhisayo kale aan soo marnay labadaas muqaddimo markay haysatid haddana qaab muayana iyo nidaam muayana oo qofka injineerka uu yaqaano oo labadaas muqaddimo la isku saaraa jirta oo qofka injineerka oo mantiqa yaqaano aqliga injineerka ku ah oo muhandisul aqliga ah baa yaqaana labadaas muqaddimo kaliya marka soo heshid kaligood natiijo ka soo bixi mayso oo guriga marka inta alaabtii soo gadatid aan meel keentid hadaa soo isugu walaaqdid guri dhismahay ma noqonay
haddana haddaad ogaato caalamku inuu yahay wax mumkin kastana ogaatid sabab inuu leeyahay intaas kaliya kuguma filna saa ilaahay jiritaankiisa aad u ogaatid waxaa u baahan tahay inaad taqaanid labadaas muqadimo aad shay qaabka isku saari lahayd marka waxaasoo dhan aan ku tusaaleyna waxa weeye caqligu marka lagu leeyahay waxaan waa caqli ama lagu leeyahay waxaan waa fikir macnihiisu waxa uu yahay shaygan aad ku fikiraysid ama shaygan aad rabtay si caqliga inaad u ogaatid laba muqadimo ayaad samaysay saa natiija kaaga soo baxda shaygan caqliga marka waa maxay caqligu laftirkiisu waa nafta sameynta ay sameynayso labadaas muqadimo oo natiijada ay ka soo saaraysaa waxay tahay naftii wax u shaqeynaysaa si caqli saasaa quraanka in badan caqliga waxa looga cibaareynayaa ficil looga cibaareynayaa qofka la leeyahay caqli male waxa weeye ma isticmaalin muqadimaadkii yani informationkii iyo macluumaadkii uu haystay saa hadda labada hadda muqadimo aan sheegayo muqadimana waxa la yiraahdaa muqadimadii aad ku heli lahayd informationka muqadimana waa muqadimadii informationkii macluumaadka aad heshay aad ku tartiibin lahayd oo aad nidaam mucayan isugu saari lahayd marka qofka markii la leeyahay qofkan waa caaqil ama aan leenahay qadiyadan si caqli ah u dharaandhirinaysa ama shaygan si caqliga waafaqsan uga hadlaysa ama caqligu waa wax lagu kasban karo aqoonta iyo macrifada macnaheedu waa sidaas yani shaygan markii ay rabtid mucayanka ama ha ahaado shay kaligiis ah waxa cilmiga mantiqu tasawur ay dhahaan oo hadda inaad mobile wax la yiraahdo ogaatid inaad ogaatid wax la yiraahdo cilmi inaad ogaatid wax la yiraahdo caqli inaad ogaatid wax la yiraahdo mumkin shay kaligiis inaad ogaatid tasawur baa la yiraahdo iyo inaad shaygu xukum saadid oo aad tirahdid yani cilmigu faa'iido ayuu leeyahay mobilku waa dheeriya ama waa gaabanya ama waa cadiya ama waa madowya ama waa samsuun ama waa kala shaygan inaad xukum saartid tasdiiq baa la yiraahdaa iyo shay kaliya inaad ogaatid macluumaadka dadka bini aadamka labaas u qaybsamaa yani marka qaar qadiya taxliiliya qadiya tarkiibiya waa dhihi kartaa markii tasdiiqaadka laga hadla laakiin shay kaligiis inaad ogaatid ama shaygii xukum inaad saadhiyo tira shaygan waa saas marka shay marka kaligiis ogaanaysid waxa u baahan tahay sida hadda aan sheegay caqligaba laba shay oo iska korsis hadda insaanka kaligiis marka ogaanaysid waxa u baahan tahay inaad tirahdid insaanku waa noole fikra hani tusaale haddaad duntid aduu la inuu taariif kale laakiin waxa u baahan tahay wixii uu iska saarnaa in aad ku qeexdid shaygan marka qeexaysid haddii aad tasdiiq shaygan xukum inaad saadid waxa rabtaa inaad tirahdid caalamkan aan joogno xaadith weeye qadiim ma waxa u baahan tahay laba muqadimo inaad la timaado u baahan tahay laba muqadimo inaad tiraahdo yani caalamkan ma jirin markii hore caalamkan ma jirin adam buu ahaa ka bacda ayuu imaaday wax kastoo maqnaa oo aan jirin oo imaadayna waa xaadith idan caalamkan waa xaadith fiir marka caqliga lagu sheegay marka muxuu yahay waa labadaas muqadimo midda koowaad iyo midda labaad iyo qaabka mucayanka ah oo nidaamka qofka muhandiska ah oo mantiqiga uu yaqaano oo la isku saaray waxa ka soo baxaya markaas natiija ka soo baxaysa waxa laga yaabaa yani dad badan inay dhahaan hadda ama ku saamiyay falsafo qarbiya qayb badan oo kamid ah inay dhahaan yani mantiqaas waa caqiim wax faa'iido ma lahan labadaas muqadimo kale laakiin waxaas waxaan leenahay waa sheeko barelay kan adigu wado anna waxa leenahay mantiqa marka laga hadlayo yani dadka qaar waxay ku leeyihiin mantiqa Yunaan baa keenay Greek baa keenay Aristotle baa keenay Aflaatoon buu ka soo qaatay kale wax ka jira waxaas oo dhan ma laha waxaas dhan yani waa sheeko oo taqliid iyo indhalaan iska qofka bini aadamka aqoon markii la yiraahdo aqoonta miisaan inay ma leedahay waxaan ku jeedaa aqoontu ma leedahay miisaan lagu kala saaro saxnimadeeda iyo khaladkeeda su'aashaas ku diina imma inaad tiraahdo ma lahan miisaan lagu kala saaro wa imma inaad tiraahdo waa leey haddaad tiraahdo miisaan sax iyo qalad lagu kala saaro ma jirto hadda taas qof la khidaabi kara ma tihi haddaad tiraahdo miisaan baa jira sax iyo qalad lagu kala saaro anugu miisaankaas ayaan ula jeedaa mantiqa أنو كان واحد أرسطو iyo Aflaatoon iyo Ibn Sina wax ka qusay mala yani qofkii shubhada shakiyaas uu ku jiro mantiq anu waxaan ka wadaa hadiiba uu jiro miciyaar iyo miisaan aqoonta lagu ogaan karo inay sax iyo qalad ay tahay miisaankaas anu mantiq u aqaan adigu hadaa markii miisaan kan aan sheegayo ka duwan aa keeni kartid iyo kan ahlan wasahlan waa ka faa'iideysanahay waa intaas wax dhan oo la sheegay marka mantiqu waa miisaanka adigu magaca doonto u bixi dadka qaar markii laga hadlo علومتا قار مقعي كعران يعني dadka qaar hadaad tirahdid cilmigan magacaas uu leeyahay oo magaciisa ay sheegtid way ka didahayaan hadaa magacii ka bedeshidna wuxuu yiri
boqor cabdilxamiid athani oo boqoradii cuthmaaniyiinta ka mid ahaa ugu dambeeyey baa istanbul meel waxaa lagu dhigahayay cilmiga falsafada dadkii marka xeerta ahaa iyo dadkii falsafada markaa daraasiinayay nooc ma wuxuu ka dareemay inay ka cararayaan falsafada markay maqlaan yani sheekh hebel falsafo bilaabaya bili ya falsafa war falsafa anuu dhigan maayo mana qabo marka madrasadii iskoolka horta waxa lagu soo dhejiyey waxaa la bilaabi doonaa 10 ka mid a casharada falsafada markaasay dhaheen ardadii qof yimid lama arko waxay falsafo ma rabnaa anaga ma nawaalasa aan falsafo ku falayna boqorkii loo sheegay marka cabdilxamiid athani markaas wuxuu magaca ka bedelay waxa dhahdaan waxa la bilaabayaa cilmul xikma waxa dhahdaan waxa la bilaabi doonaa isbuuc soo socda cilmul xikma la bilaabaya falsafada waa xikmadii marka meesha waxa lagu soo dhejiyay waxa la bilaabayaa fanul xikma la bilaabaya faniga xikmadda ka sheekay markaas ardaydan yimaadeen marka dadku aslanba wacyigooda iska gaaban oo dadku badanaa taqliidka waxa ama qofka la ayaa sheekhiisii uu ka maqlay oo dhigi jiray yani wax mantiq la yiraahdo ma jiraan ama fulaan ama farqi heblu ka tirsan yahay marka bimujarrad magacaasa dhibaya ama dadbu wuxuu ka maqlay wallahi aristo iyo aflaadon yaa keenay waxaan waa nadariyad qadiima midna ogaada yani sheegan inuu xaq yahay inuu baadil yahay qadiim iyo xaadis midna kuma xirna yani waa la soo dhaafay iyo hadduu joogaa iyo waa horeeya waa dambeeya kuma xirna sheegu xaq duya waa xaq hal ku dar waa labo ama qadiim waa hore ahaato ama mustaqbalka soo socda ahaato ama hadda ha ahaato ilaahay waa waaxid haddaan niraan weegi hore la dhihi jiro muslimiinta dhihi jirta hadda dhihi meelno ma suurtagalba maahan haddaan niraano yani qadaayaadka laba naqiid ma kulmahayaan markaan niraano ayaantii hore la dhihi jiray hadda waa laga gudbay qarni 20 la maraya ma la dhihi karo lama dhihi karo marka waxaan xaq inay yihiin baadil inay yihiin shakhsina kuma xirna yunaanna kuma xirna waqtina kuma xirna xaqu waa xaq baadilkuna waa baadil marka taas yani dadka nooc ma markay mantiq maqlaan ka didahay ayaan u sheegayaa yani inaysan laftirkoodu noqon ayagoo taqliid ka digaya inaysan ayagu muqallidiin noqon macna ay ogaadaan xaqiiqada cilmigan wax uu yahay iyo bal cilmigan inuu yahay yani miisaanka caqliga inuu yahay yani caqligii wadiifada uu qaban lahaa ayaa lagu sharaxay cilmiga mantiqa la yiraahdo cilmiga mantiqa la yiraahdo waa sharaxaada wadiifada caqligu see u falgala intaas kaliya ku sharaxaya marka intaas waa yani masdarkii koobaad oo masaadirta aqoonta kamid oo ah caqligii xaqiiqatan yani waxaan dareemayaa yani inaan dulma baahin laakiin nooc ma laga yaaba ama as'ilada ama wixii imaan doona ama duruus soo socota dabcan 3 muxaadaro ugu yaraan way noqonaysaa inaan baahin doono waxaan dareemayaa yani meelo badan oo ku saabsan mawduuc inaan ka hadlo muhiim jiddan ah oo caqliga waxyaalo badan farfuruud u dhaxeeya waxyaalo badan aan ka sheekeeyo laakiin waqtigu ii wada saamixi maayo marka caqligu waa masdarka koowaad oo aqoonta laga helo masdarka labaad waa xawaasta iyo caqliga iyo khabarka saddexdaba xawaastu yani dareemayaasha weeye inay saliim yihiin shardi macna marka leenahay caqliga qofka qaar wax ku dhigi kara oo niyo hebel oo ama filosof ha ahaado ama mutakallim ha ahaado ciduu doona ha ahaade caqligu ay waana khaldamay waxaan leenahay caqligu inuu saliim yahay shardi fiiri marka ka hadlano qofka hadda uu qof axwala yahay yani qof indhaha weersha duu indhihiisa ku jiro dayaxa markuu fiirsho dayaxiga laba uu arkaya tusaalahan marka qofkii weershaha laba dayax inuu u muuqato ma waxay ka dhigan tahay dayax inuu laba yahay kama dhigna أنا waxaan leeyahay hal xabo weey qofka hadii xawaastiisu iyo indhihiisu ay nabad qabaan laakiin qofka markuu weershay yahay oo indhihii si u kala qalloocaan waa laga yaabaa asagu dayixiyo laba inuu u jeedo marka ciladu xagee ku jirtaa ciladu waxay ku jirtaa aalada asagu uu adeegsanay sababka asagu cilmiga uu ku ogaanayo fiir aaladu cilmiga ma ahan macluumka la ogaanayo dayixiya dibka kama jiro dibka muxuu ka jiraa waxa dayaxa uu ku ogaanayo indhihiisa waa ka khaldan aqligu waa sidaas oo kale marka qofkan oo caqliga intuu adeegsaday aalada wuu khaldamay khaladku wax uu ka jiraa caqliga uu adeegsaday caqligu waxaan rabaa sababki haduu sababku qaldan yahay musababkuna waa khaldamaya si indhihiiba hadii qofku uu ka ciladeysan yahay uu araggiisa u khaldamaya adiga waxa laga yaabaa hadda ani okay ala wata meel waxa uu jeedi karo adiga meel ka sii dheerana wax uga jeed marka inaad tiraahdo meeshaas waxa uga jeedi weysa adiga idan indhuhu sabab cilmi maahan inaad tiraahdo waayo indhaha haday aragu uu cilmi u ahaan lahaa masdar waxaan u jeedi lahay waxa la indhaha qofkan hadda cilla ku jirta meesha wax ka arkay kama arki karo aqliguna waa sidaas oo kale
qofkan waxa laga yaabaa caqligiisu wax buu geersiiyey kaas kale caqligiisu wax kale uu geersiiyey khadu wax ka jira waxaan leenahay caqligaada khaldan ninkan yani waxaasoo dhan waa cilmiga mantiqa waxa loo alifay waa intaas in la ogaado caqligu goormuu saxan yahay goormuu khaldan yahay si loo ogaanayo indhahan goormay saxan yihiin goormay khaldan yihiin hadda ka soo qaad 20 qof oo wiirshaa iyo hal ninoo indhihiisu caafimaad qabaan hadda isku meel ku jiraan oo halkii nin yiraahdo dayaxu waa hal xabo ayaguna ay dhahan dayaxu laba way 19 kale isku waafaqaan asagoo kaligiisu yiraahdo dayaxu hal xabo way soo lama dhigi karo wadar iyo waaxid yaa waalan kaligaa baa tahay annagu 19 aan nahay laba dayaxaan arkayna haday dhahan dadku ha qariibsanayaan dadku waxay isleeyihiin say ku dhici kartaa 19 qof inta wax isku raacaan hal qof inuu sax noqdo waxaan noqon karaa markii leeyahay intu dhici kartaa man fil ardi yudillu kan sidii waa saas oo kale way dhici kartaa dad badan oo falaasifo ah ayagoo adeegsanaya caqliga inay khaldamaan khada uu ka jiro caqliga laftirkiisa ama wuxuu ka jiraa informationkii macluumaadku uu haysto kuwii munaasabka u ahaa natiijada ma ahan ama informationkii macluumaadku haysto kuwii natiijada munaasabka u ahaa waa yihiin qaabka uu isku saaray oo uu u nidaamiyay muhandis fiican buu ahayn oo nidaamku isku saaray baan sax ahayn khada uu marka muqaddimada koobaadna waa dhici karaa oo ah informationkii macluumaadka helidooda muqaddimada labaadna waa dhici karaa oo ah informationka nidaamintooda iyo qaabka la isku saaray marka waxa la rabaa caqligu inuu yahay caqliga saliimka oo caqliga saliimka si lagu ogaado hal miciyaar in sheega lagu ogaan karo caqligu saliim inuu hal miciyaar bas aan siinaa macaayir badan uu leeyahay iyo miisaan badan hal miisaan aan siinaa miisaanka lagu ogaan karo caqligu saliim inuu yahay waa in loo celin karo qaacidada la isku waafaqsan yahay oo ah ijtimaacu naqiidayn baadil inay tahay laba naqiid inay kulmaan ama laba shay opposite ay kulmaan waa baadil qaacido kasto caqli ah waa in loo celin karaa النفي والإثبات لا يجتمعان قاعدة كستو عقليه أن أولابنين النفي والإثبات لا يجتمعان وبادل إذن وميزان يعني النفي والإثبات لا يجتمعان وقاعدة عقليه أو متفقة إذن سيك قواعد كلو عقليه كو أغان كرنا إن نتائج تكلا صح إنيهين تنا أسو إلينا تي تن أسو لابطة وصح تي أسو لابن ويسا وبادل يعني هل كاسم عيارة هذا بانسينها معايير بدل واجه عن علمي منطق ولو حواسته marka shanta ah waa masdar macrifa ayaguna oo wax lagu ogaadaa oo taas xitaa yani tajribiyiinta iyo hadda maadiyiinta iyo kulli hadda waa waafaqsan yihiin adoo nidaamka wax lagu ogaado tafaasiil ku sii jira mid kasta masifaadka kaliya ogaan karaan kayfiyada indibaaca yani macluumaadii sax ma ka turjumahayaan xawaastu waxay soo gudbinaysaa macluumaadii sax ma tahay maya suuro u dhiganta macluumaadii soo gudbinayaan suuradaas ay ka soo gudbinayaan macluumaadii ee shayga boqolkiiba muwaafaqsantaa macluumaadii yani waxa laga yaabaa dad badan markay maqlaan macluumaadkaas oo kale inay u maleeyaan yani hadda physics mucaashaqa yani modern physics iyo hadda yartaan iyo umuman yani modern science in hadda la ogaaday macluumaadkaas oo ma oga dad badan yani 1000 sano ka hor mutakalimiintu inay ka sheekahlayeen culimada cilmi kalaam midab maxaa la dhahaa midabku xaqiiqad ma leeyahay muxuu iska seeran yahay waxa la arkaayo midabka miyaa mise shayga laftirkiisa jismiga la arki karaa aragtidu ma indhahan oo shayga ku indibaac maayo shoocaca wuxuu ku soo gudbinayo suuraba mise waa shayga xaqiiqadiisa yani waxa soo dhan bay ka leeyeen shoocaca inta ka soo baxaya indhaha beeloo midab ku kala leeyahay tabta hadda ay u baxshiyaan yani dibbiga iyo cilmiga xitaa caafimaadka indhaha iyo markay baxsinayaan yani shabakada isha iyo qaabka shoocaca ay wax ku aragto iyo waxa soo dhan iyo aragtida iyo macluumada banaanka taala iyo dhihniga shakhsiga iyo irtibaadka iyo xiriirka ka dhaxeeya 1000 sano ka hor ay culimada mutakalimiinta baxtinayeen oo ay ka hadlayeen ayagoo jaanibka caqliga iyo jaanibka xisiga labadaba isku xiraay marka xawaasta shanta ah waa ayaduna waa masdar kamida masaadirta macrifada midka ugu dambeeya waan soo koobayaa dabcan gadaalan xuduudul macrifa markii aan si faafahin doona waa khabarka waxa laga wadaa laba khabar laga wadaa khabarka oo aqoonta u ah macrifada saxda khabarka saadiqa oo runta khabarka runta laba midkood weey khabarka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo mucjizo lagu xoojiyay yani khabarkan waxa noo sheegay ahad inuu run sheegayo aan mucjizo ku ogaanay wasi nabigiyo kale hadii alla yiraahdo muxaadaradan hadda labaad soo socota quraankan ka hadli doona kariimka inuu mucjizo yahay oo kalaamki ilaahay yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan sheegi doonaa kalaamkiisa hadal kasto uu ku hadlo inuu run yahay see ku ogaanay mucjizo lagu xoojiyay khabarka marka nabiga sallallahu alayhi wasallam la hubo afkiisa inuu ka soo baxay oo kale waxaan leenahay waa khabar run ah
waayo waa khabar mucjizo lagu xoojiyey kaas hadda intaas uga sii baxaya waayo mucjizadii tafaasiir kale u baahan yihiin laakiin hadda intaasaan ku gaabinahay khabarka labaad oo noqon kara isha aqoonta waa khabarka la yiraahdo mutawaatirka dad badan oo kala duwan ayaa waxay ka soo warameen war soo sheegay yani muslimiin yihiin xitaa shardi ma dadkaas ilaa heer yani aan qadcinayno in ay isku waafaqi karin yani dadkaas been ay isku waafaqi karin yani dad hal qol soo wada gali kara oo been ku heshiin kara ma ana hadda tusaale ani waxaan ogahay adduunka inuu jiro wadan la yiraahdo yani tusaale ahaan America wadan la yiraahdo inuu jiraan ogahay weligeena ma tagin waxaan ku ogaanayaa yani dad kala duwan ba iga waramay hadda waxaan ogahay Soomaaliya ka soo qaad madaxweyne inuu soo maray tusaale ahaan oo madaxweyne siyaad baro kale inuu madaxweyne Soomaaliya ka soo noqday mana haleelin ani waqtigiisa ma joogo see ku ogaan karaa ana ka soo qaad yani fiidiyogiis ma daawan ama hadaan daawan xitaa fiidiyogiis sawirkan inuu yahay laftigeeda waa isla meesha see ku ogaan karaa inuu yani dadkeenan aan xilligiisa joogin yani waan ka hadlayaa in madaxweynaha Soomaaliya soo maray si mutawaatir aan ku ogaanay yani macna qof kasta aan ka maqalna dad kala duwan oo aan been ku heshiin karin ayaan ka maqalna hadda tusaalaan Soomaaliya waxa jira magaalo tusaalaan ku taala oo weligii aan tagin oo kale oo magaalooyinka waaweyn kamid ah inay magaalada soo magaceeda anaga waa wada